madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa go'aan culus wuxuu uga dhawaaqay magaalo ku taala dalka Tanzania halkaas oo ka dhacayo shirweynaha tamarta Afrika oo ay wadamo badan ka qayb galayaan waxa idin la wadaagayaa go'aankaas iyo baaq oo madaxweynaha diray waxa uu fursad u noqon doonaa kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo shaqo la'aan gudaha dalka Soomaaliya ku wajahayo Soomaaliyana wuxuu u furi doonaa albaab cusub haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo kamid noqon saaxiibada nagu xiran aragtidana qaybta sifaalada noogu reeb muuqaalkana si shargare aad u mahadsantaa markaana waxaan u gudagaleynaa baaqi iyo go'aankii ka soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya shirka tamarta Afrika oo ka socda dalka Tanzania ayaa khudbad uu maanta jeediyay waxa uu ku daafuray albaab cusub kaasi oo haddii Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo dalka Soomaaliya ka saari doono faqriga iyo sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeedna u sahli doono fursado waaweyn oo dhanka shaqada ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in dawladdiisa ay dejisay istiraatiijiyad iyo qorshe cusub oo ay Soomaaliya uga mid noqon doonto wadamada warshadaha leh soo kalena dalka Soomaaliya oo khayraad badan oo dihan u yaalo dunida gaar ahaan ka qaybgalayaasha shirka tamarta Afrika ugu baaqay inay maal gashadaan dalkan isla markaana dawladdu ay sii doonto fursado taasoo keeni karta barnaamijyo muhiim ah oo horumarineed oo dalka Soomaaliya dhalinyaradana shaqo abuur u ah bulshadana horumar u ah khudbadda uu jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu yiri horumarka Soomaaliya ay hiigsanayso waxa uu u baahan yahay tamar jaban oo la heli karo maanta dadkaygu kala bar ama 50% ma haystaan koronto ku filan sidaas awgeed waxaan qorsheynaynaa inaan xoojino maalgashiga tamarta si aan awood ugu yeelano hirgelinta warshadaha casriyeynta kaabayaasha nolosha iyo sidoo kale xoojinta adeegyada bulshada ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu sheegay in Soomaaliya ay leedahay khayraad badan oo la xiriira dhanka cusboonaysiinta tamarta sida qorraxda iyo dabaylaha kuwaas oo mustaqbalka u noqon kara Soomaaliya ila muhiim ah oo laga dhalin karo tamar saaxiib la ah deegaanka ama aan dhibaato ku ahayn deegaanka Soomaaliya waxa uu sheegay inay qorsheynayso inay ka mid noqoto wadamada warshadaha leh haddii dalkana uu ka mid noqdo wadamada warshadaha leh oo ama ay maalgashi caalami yahay warshadahaas ku yimaadaan ama dadka Soomaaliyeed ay sameystaan inay keeni karto dalkan inuu ka mid noqdo wadamada warshadleyda ama wadamada ka baxaya faqriga iyo saboolnimada ee gaaraya wadadii horumarka cagta saaraya in la helo warshado oo Soomaaliya ka hirgala waxay ku xiran tahay in tamarta Soomaaliya ay xoogaysato ama isbedel lagu sameeyo si warshaduhu ay u helaan adeegyo ku filan ama uu yaraado qarashka gali kara warshadaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxa uu sheegay shirkaas inuu muhiim u yahay Soomaaliya sababta dawladdiisa madaxda sare ay u tageen sida madaxweynaha wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Abdullahi Bidaan Warsame iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Bixi Imaan Cige ay tahay muhiimadda ay dawladda Soomaaliya u leedahay iyo sida u daneynayso in wadamada caalamiga ah inay ka qayb qaataan maalgashiga mashaariicda tamarta Soomaaliya oo suuq weyn oo dihan ah dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay fursad siiso shirka ka socda dalka Tanzania oo ashar madaxeedka tamarta Afrika waxa ka qayb galaya madaxda qaaradda Afrika waxaana maanta laga soo saaray bayaan oo la yiraahdo Daarusalaam ama bayaanka Daarusalaam kaasoo ballan qaadaya in 300 milyan oo Afrikaan ah ay helaan koronto ku filan marka la gaaro sanadka 2030 ama 5 sano kadib Soomaaliya ayaa kamid ah wadamadaas loo ballan qaadayo inay hesho koronto ku filan sanadaha soo aadan kadibna ay bilowdaan mashaariicdii horumarinta dhinaca warshadaha dadka Soomaaliyeedna ay ka baxaan koronto la'aanta iyo sidoo kale korontada qaaliga ah iyo inay helaan warshado maadaama hadda dibadda wax looga soo dhoofiyo dalku uusan warshado lahayn in warshado waaweyn la sameeyo kuwaas oo abuuri kara fursado shaqo aad u ballaaran tahriibka ayaa yaraan doono sidoo kalena waxa yaraan doono faqriga iyo gaajada Soomaaliya ka jira sida la aaminsan yahay haddii warshadahaas iyo qorshahan dawladda Soomaaliya ay wado ay hirgalaan waxaan ugu dambeeyay shirka Switzerland ee qaaradda Yurub halkaas oo waxyaabihii looga hadlayay ay qayb ka ahayd tiknoolajiyadda iyo tamarta Soomaaliya waxay sheegtay madaxdeedu inay wadaan dadaal xoog leh oo dhanka horumarinta tamarta Soomaaliya iyo tiknoolajiyadda ah iyo sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada markii timid dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa shaqo helay ugu yaraan 6,000 oo macallimiin ayaa ku biiray wasaaradda waxbarashada Soomaaliya qaar kalena waxa laga shaqaaleysiiyay shaqo wasaaradaha dawladda iyo hay'adaha kale hoos yimaada kuwaas oo ayagana aan ka yareen qiyaastii 3,000 oo qof
xogta aan helnay sidoo kale waxay tilmaamaysaa dhalinyaro ka badan ilaa 20,000 oo qof in ay shaqo ka heleen dowladda gudaheeda gaar ahaan inay ku biireen qaybaha kala duwan ee ciidamada taasoo wadarta ka dhigaysa wax ku dhow ilaa 30,000 oo qof inay shaqo ka heleen dowladdan cusub ee hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaas oo 20 ka mid ama 20,000 oo ka mid ay yihiin dhalinyaro ku biirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed booliiska iyo nabad sugidda Soomaaliya dhalinyaradeedu waxay wajahayaan shaqo la'aan xoog leh laakiin waxay u egtahay inay jirto soo kabasho xoog leh kaliya dawladdu ma bixiso fursado shaqo ee sidoo kale waxaa jira businessyo ama ganacsiyo xoog leh oo waaweyn oo dalka ku soo badanaya kuwaas oo ayagana abuuray fursado shaqo dhismaha dowlad goboleedyada ayaa qayb ka ah sidoo kale meelaha ay dhalinyaro fursadaha shaqo ka heleen inkasta oo ammaanku weli uusan gaarsiisin heerkii loo baahnaa kalsooni shaqo dhalinyaradu aysan qabin oo in badan oo ka mid ah weli ay tahriibayaan haddana markii loo eego sidii xaaladdu ahayd hadda ay ka duwan tahay aragtidaada qaybta hoose faalada noogu reeb muuqaalkan si shargaray aad iyo aad u mahadsantahay